بسم الله reer walba ilaahay baa dhasha bixiya dhal doonayo si fiican ii dhageysta reer walba oo ilmo badan muddo badan ilmo raadinayay hooyo kaste oo ilmo ay ka soo dilmeen muddo badan la dhibaatanayd dilan ama dhaqaatiir badan tagtay oo aanan helin wax caawiya aabo wax badan xaaskiisa geeya dhaqaatiir ama meelo badan oo wali aanan helin wax caawiya waxaan ku tilmaamayaa oo aan ku siinayaa daawada reer walba oo qaatay oo Soomaaliyeed ay ku liibaaneen ilaahayna caafimaad taama uu ku siiyay oo ah daawada idin muuqata daawada idin muuqato waxaa jira intaas oo Soomaali ah oo waliba khaasatan hadda markaan Afrika aaday aan la kulmay oo aan la soo koobi kareynin oo meelo badan ka kala yimi ilaahay subxaanahu wa ta'ala uu aqbalay kuwa 6 sano reer lahaa kuwa 12 sano lahaa kuwa 5 sano lahaa kuwa 4 sano lahaa kuwa isku keen waxaan indhahayga saaray oo aan la kulmay hooyooyin fara badan oo Soomaaliyeed oo muddo fara badan awlaad raadinayay joodar cille ka soo kacayay laakiin maanta ilaahay subxaanahu wa ta'ala agtooda uu dhigay wehel ilmo ilaahay uu dhigay subxaanahu wa ta'ala ma la soo koobi karo saan maalin hore sheegay waxaa jirta hooyo Soomaaliyeed oo 9 jeer dilatay kuwa intaas soo jeer dilmay maalintii daawadan qaateena ilaahay subxaanahu wa ta'ala dilankii alla uu ka qaado ilaahay uu ka saaray caafimaad taama ilaahay uu ugu bedelay ilaahay caafimaad uu siiyay adaan ku weydiina meeqa jeer baad dilatay weli ma waxaad rabtaa inaad sii dilanto ma waxaad rabtaa inaad sirta sii fadhido mid ogow xanuunku mar walba waa midka qalbiga qofka ka jabiya markasta uu dhakhtar aado oo qofku dhakhtarkii uu yiraahdo wax ma qabtid ama caadada sidana ama sidan baa tahay marka qofka xanuunkan wuxuu ku ridaa inuu soo gubto markii uu ka yimaado cabaar uu joogana wuxuu xanuunkaasi hooyada qalbiga u galiya dhakhtar kale aad waxa xanuunka dabeysha loo yaqaano oo ay yiraahdaan culimadu nabiyullaahi zakariya inta Yaxya dhalin aad bay u dilmi jirtay markii saasa Yaxya loogu bixiyay waa dilaa qarsoon hooyooyin fara badan waxaan arkay oo kule 6 baa iga soo dilmay 7 iga soo dilmay laakiin hadda waa dhalmadaay ma halkaas aad sugaysaa wallahi aadan uga naxay markaan arkay xal bay lahaayeen laakiin waxay gudbeen xaga kale ay u gudbeen oo caadada ka tagtay oo way ka gudbeen xilliga caadada wax badan baan arkay aad waliba hadda intii aan joogay Afrika ayaan arkay oo aad baan uga murgay halkan Mareykan aan joogana waan ku arkaa hooyo kule 6 jeer baan dilmay 7 jeer baan dilmay inaan daawooyin qaato herbala ama wax ku saabsan nasiib maan u yeelanin haddana maxaan sameyn karaa ilaahay inuu subxaanahu wa ta'ala maartay ku samir oo inuu ilaahay ku samirsiyo laakiin xal kale haddaad markaa rabto inaad saaq ugu dhicin oo ilaahay idinkii wehel aad hesho daawadaas dadka ilaahay ku shaafiyay waan soo tirin doonaa insha Allah ta'ala marba kasaan soo qaadan doonaa lama soo koobi karo ee waxaad samaysaa inta goor ay tahay ee xanuunku aan ku diloon caadadu ka wareeri dhabarku ku xanuunay lugahaadan ka socon weyn hurda ay maartay hurdalaan kugu dhicin daawadaas ilaahay idinka waad ku caafimaadaysaa lambarada ka waco waan heli doontaa dadsadaan ku soo gabagabeynayo hooyo joogtay halkan Mareykan ban loo soo dhiibay qaybta Nairobi looga soo dhiibay wallahi waxay itusi hooyada oo ii soo dirtay waxa ka soo dhacay ilaahay uunba subxaanahu wa ta'ala xaalkeeda ogaa marba iyada qisada soo qaadan doona hadii Allah wadal uu idmo laakiin waxay tiri forever daawadan wax lamida ma arkin bay tiri sidoo ilaahay subxaanahu wa ta'ala u caafiyay marka Allah ha ku caafiya adigana waxa ku dhabayana Allah kaga soo saaro assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh